shalay lagu dhawaaqay in magaalada Minneapolis bisha Ramadaan gabi ahaanba masaajidada magaalada looga adami doono si baahsan oo codbaahiyaasha laga maqli doono gabi ahaanba xaafadaha u dhow masaajid walba. Jamaal Cusmaan gudoomiyaha degmada Lixaad oo hawshan ka soo shaqeeyay ayaa ka warbixiyay dadaalkii loo galay kulan xalay ka dhacay masaajidka Abuubakar oo ay ka soo qayb galeen culimada magaalada ayaa Jamaal waxa uu ka sheegay arintan. kulliin wayna salaamay islaanta islaamka aynu ku salaamay aad baa u mahadsantihiin shaqadiisa aad buu u mahadsan yahay oo kulankan isku kaay keenan naga dhan bil Ramadaan oo khayr badan ayaana soo galaysa waxaan rabay inaan la wadaago arrin aan ka shaqeynay hal sano in ku dhow ama in ka badan hal sano aan ka shaqeynay oo ah aadaanka masaajidyaasha Minneapolis. Saad ogtiin Minneapolis waa magaalo alxamdulillah masaajid badan ku yaalaan ummad badan oo muslimiin degan tahay aniguna aan fadhiyo xafiis kamid ah degmo kamid ah marka waagii masaajidka sida Riverside ku yaala laga adimay dad badan ayaa aad ugu farxay oo soo dhaweeyay arrintaas waxaan arkay arrin muhiim ah inay tahay inaan sii wadno sharciga ayaa dhinac walba ka fiirinay staafka siriga ayaan la shaqeynay waxaan rabay inaan la sheer gareeyo in aan baas garay doono khamiista soo socota siri Minneapolis inay ogolaato masaajid walba oo Minneapolis ka yaala in laga adimo ما شاء الله الله أكبر oo adinkaas uu noqdo adin speakerada kor lagu xira karo dadka wadada maraya dadka dariska ah iyo qof walbeeto uu ka maqli karo meel uu jiro sidii aad dal islaam ah joogtid ama Soomaaliya ama dalalka muslimiinta saad u maqli adinka Minneapolis looga maqlo arrintaasna ma taqaanaa waa arrin aad u wanaagsan